Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kanaalka Panama waa mid ka mid ah maranbiyoodada ugu muhiimsan dunida. Waxaan lagu tiriyaa mid ka mid ah mashruucyada dhisme ee ugu weyn caalamka. Wuxuuna dhererkiisa gaarayaa ilaa 82 kiiloomitir, halka ballaca ugu ciriiriga badan uu gaarayo 150 mitir. Meesha kanaalka ballaciisu ugu ballaaran yahay waa harada Jatin, wuxuuna halkaani ka yahay 422 kiiloomitir oo iskuweer ah. Waxaana kanaalkan la furay 4 bishii Agoosto sanadkii 1914 oo ku beegnayd bilowgii dagaalkii koowaad ee adduunka. Wuxuuna marinkani soo gaabiyey masaafadii dheereed ee u dhaxaysay magaalooyinka New York iyo San Francisco, taa oo ahaan jirtay masaafo aad u dheer oo dhanka kalena qasbi jirtay in laga soo wareego koonfurta qaaradda Ameerika, isla markaana la soo jaro masaafo gaaraysa ilaa 21,000 oo kiiloomitir. Wuxuuna kanaalkani ka dhigay masaafadaasi aad ku dheereed ilaa 8,000 oo kiiloomitir. Wuxuuna kanaalkani fududeeyey inay si sahlan isugu xirmaan ilaa 102 waddan oo hoos imaadaan 1,700 oo dekedood. Waxaana kanaalkani sanad walba mara tiro maraakiib ganacsi oo gaaraya ilaa 14,000 oo markab. Waxaana ugu weyn dowladaha maraakiibtooda ganacsi halkaani maraan Maraykanka, China, Jaban iyo caalamka intiisa kale. Waxaana kanaalkani isbuuc kasta ka gudba 7,000 oo konteenar. Dhanka kalena waxay dowladda Panama sanad walba ka heshaa kanaalkani lacag canshuur ah oo gaaraysa adduun dhan $2 bilyan. Haddaba goorma ayuu soo bilowday aragtida in halkaani maanta sahashay inuu ganacsiga adduunka si sahlan isaga goosho laga fakaro in laga dhiso maranbiyoodkani? Waxay soo bilaabatay aragtida in la dhiso maranbiyoodka ama kanaalka Panama sanadkii 1534. xilligaas ayay amar bixiyeen imbaraatorkii Roomaanka, boqorkii Isbayn Charles shanaad. Waxayna soo jeediyeen in la raadiyo waddo gaaban oo si sahlan u tagaysa dhulka dhaca galbeedka waqooyiga qaaradda koonfurta Ameerika. Xilligaasi aagaasi waxaa ka socday raadinta dhul cusub. Wuxuuna Alejandro Malaspina oo ahaa sahmiye isla markaana dhanka kale ahaa sargaal ka tirsan ciidanka badda ee Isbayn saadaaliyey in aagani hadda maranbiyoodka Panama ku yaalla ku wanaagsan tahay in laga sameeyo kanaal isku xira labada badweyn ee kala ah Atlanta iyo Pacific si ay u fududaato isu socodka dhanka badda. Laakiin waqtigaasi waxaa jiray duruufo badan oo adag oo aan ogolaanaynin in la sameeyo maranbiyoodka Panama. Waxayna aragtida dhisidda kanaalka Panama dib u soo laabatay kadib markii sanadkii 1849 wilaayada California ee dalweynaha Maraykanka laga helay dahab. Wuxuuna helitaanka dahab California sababay in aaggan laga fakaro sidii looga dhisi lahaa maranbiyood. Laakiin aakhirkii xaalku wuxuu dhaafi waayey in sanadkii 1855 la dhiso waddo tareen oo isku xirta labada badweyn ee Atlanta iyo Pacific. 26 sano kadib dhisitaankii waddada tareenka, waxaa si dhab ah u bilowday in aaggan laga qodo maranbiyood. Waxaana isku daygaani bilaabay 1 Janaayo sanadkii 1881 dowladda Faransiiska. Waxaana mashruuca dhismaha kanaalka madax ka ahaa ninkaani oo lagu magacaabo Injineer Ferdinand de Lesseps, ka oo hore ugu soo guulaystay dhisidda iyo qodidda maranbiyoodka ama kanaalka caanka ah ee Suez ee ku yaalla waqooyiga dalka Masar, isla markaana isku xira badaha yaryar ee kala ah Badda Cas iyo Badda Cad ee dhexe. Ferdinand ayaa dhisidda kanaalka Suez ku guulaystay kadib markii maalgelin iyo taageero joogto ah uu ka helay dowladdiisa Faransiiska. Laakiin shirkaddii Faransiiska ahayd ee waday dhisidda iyo qodidda kanaalka Panama ayaa joojisay dhismaha kadib markii halkan hadda quruxda badan uu ka dhacay halaag weyn oo waxaa dhintay inta yar uu socday mashruuca qodidda oo 3 sano ahayd. Tiro shaqaale ah oo kor u dhaafaysa ilaa 22,000 oo ruux. Waxaana geeridooda sabab u ahaa dhulgo' tiro badan oo ku dumay shaqaalihii iyo cudurrada malaariyada iyo cagaarshowga. Tiradani badan ee ka dhimatay shaqaalaha waxay keentay in ay yaraadaan raggii khibradda u lahaa qodidda iyo dhismaha kanaalka. Dhanka kale, dowladda Faransiiska waxaa halkaani kaga baxay adduun dhan $287 milyan oo xilligaasi ahayd lacag xoog badan oo dowladda wax kale ku qabsan kartay, laakiin ay ku bixisay mashruucaani dhicisoobay. Waxayna lacagtaani badankeeda ku baxday qaab maamul xumo ah iyo musuqmaasuq. Waxayna shirkaddii mashruuca dhismaha waday iclaamisay 15 May sanadkii 1889 in ay shiiday isla markaana ay sii wadi karin mashruuca dhismaha ee kanaalka Panama.
waxaana uu heshiiskaasi kadib soo baxay fadeexaddii ku caanbaxday magaca fadeexaddii Panama, waxayna dowladda Faransiiska ku dhaqaaqday inay xukunno ku riddo mas'uuliyiintii ku fashilmay mashruuca dhismaha kanaalka Panama, waxaana ugu horreeyey raggii jeelka loo taxaabay madaxii mashruuca iyo wiilkiisa, kuwa oo maxkamad ku taalla Baaris ku xukuntay min 5 sano oo xabsi ah. xilligaasi waxay ku beegnayd sanadkii 1894, waxaana mashruucan kadeedka badan ee dhisidda marinbiyoodka dib u bilaabay shirkad kale oo Faransiis ah, taa oo lagu magacaabi jiray Novella di Canal di Panama. laakiin wax yar kadib ayadana way ku fashilantay in ay dhisto kanaalka, taa oo keentay in dowladda Mareykanka soo gasho mashruuca lagu dhisayo kanaalka Panama, waxayna dood arrinta kanaalka Panama khusaysa ka dhex bilaabatay gudaha Koongareeska. qaar ka mid ah xubnaha Koongareeska waxay soo jeediyeen in la sameeyo marinbiyood cusub oo ka dhex dusaya kanaalka Nicaragua. qaar kalena waxay ku taliyeen in Faransiiska laga iibiyo xuquuqda milkiyadeed ee kanaalka Panama, kadibna dib u bilowdo dowladda Mareykanka mashruuca dhismaha kadeedka badan ee labada jeer ku fashilantay dowladda Faransiiska. waxayna dowladda Mareykanka u dhaqaaqday kadib markii ay xilka kala wareegtay dowladda Faransiiska gudagelidda dhismaha iyo qodidda marinbiyoodka Panama, waxayna shaqaalaha dhisayay kanaalka dowladda Mareykanka ka soo aruurisay ilaa 50 dal, waxayna tiradooda ku dhaaftay ilaa 40,000 oo ruux oo shaqaale ah. waxaana 10kii sano ee ay socotay hawsha dhismaha kanaalka ka geeriyooday shaqaalaha tiro shaqaale oo ku dhow 6,000 oo ruux, kuwa oo dhimashadooda sabab u ahayd dhulgo'a iyo cudurrada malaariyada iyo cagaarshowga. waxayna shaqaalaha adeegsanayeen aalado kala duwan oo ay dhulka ku qodayeen, geedahana ku jarayeen, burcooyinkana ku baabi'inayeen, harooyinkana kaga dusiyeen, ilaa aakhirkii ay u suura gashay inay ka adkaadaan dhammaan duruufaha ka jiray dhulka laga qodayay kanaalka. waxaana dowladda Mareykanka kaga baxay dhismaha marinbiyoodkani adduun dhan $380 milyan oo xilligaas ahayd lacag xoog badan. dhanka kale wuxuu kanaalkani sababay in dowladda Mareykanka iyo Panama uu xumaado xiriirkooda, kadib markii dowladda Mareykanka diiday in calanka Panama laga agtaago calanka Mareykanka ee suran xarunta laga maareeyo kanaalka. 85 sano dowladda Mareykanka kaligeed maamuleysay kanaalka kadib ayay sanadkii 1977 dowladda Mareykanka ogolaatay in wadajir u maamulaan guddi isku dhaf ah oo ka soo kala jeeda dowladaha Mareykanka iyo Panama. laakiin wixii ka dambeeyay sanadkii 1999 maamulka kanaalka wuxuu si toos ah ugu wareegay dowladda Mareykanka. dowladda yar ee Panamana wuxuu Mareykanka u ballan qaaday inuu ammaankeeda qaranka sugayo.